saaka oo munaasabad ballaaran oo runtii qaranka horseed u ah horumarkiisa iyo helitaanka shaqaale tirsan oo tayeysan oo dhammaan loo qabtay adeegyada ay u baahan yihiin si iyaguna ay u bixiyaan adeega ku habboon ee qaranku ka filayo. saaka munaasabadaas aynu iskugu nimid madaxweyne aad baad u mahadsantahay adiga iyo wasiirka shaqada gelinta iyo arrimaha bulshada. maanta waxaynu daha furaynaa bilowga laba kaclaynta qaranka oo ah in la diyaariyo shaqaale wanaagsan oo qaranka Soomaaliland siiya adeeg tayeysan. waxaynu kobcin doonaa xirfadooda, xoolahooga iyo dhammaan waxay agab iyo adduun iyo arrin bay nooga baahan yihiin si ay adeeg wanaagsan u bixiyaan. sidaynu ognahay dawladnimadu waxay bixisaa waa nabadgelyo, adeeg iyo horumarin umadeed. maanta waxaynu diyaarinaynaa adeegii ummadda dadkii bixinayo shaqaalihii qaranka. madaxweyne saaka waxay noo diyaarsan qorshihii iyo qalabkii iyo arrin iyo adduun waxay arrintaas inooga baahnayd. saaka waxaa la bilaabi doonaa madax tirintii shaqaalaha dawladda. marka la tiriyo tirinuun maaha madaxweyne waxa diyaarsamaya dhammaan tayeyn waxay u baahnaayeen ee tababaro iyo qorsheyn iyo qalabayn iyo wixii uu wasaaradaheena kala duwan iyo shaqaalaheena u baahnaa si qaranka loogu tisqaadiyo hanaan wanaagsan iyo heer sare oo ku horumaro. munaasabadaas maanta inoo bilaabmaysa waxaanu ka bilownay madaxtooyada qaranka. waxaa la hubin doonaa qofku shaqaalihii shaqada helay ma yahay, aqoontii uu ku mishaar qaadanayay ma leeyahay, si dadka hooseeyana aynu kor ugu soo qaadno, kuwa ka baxayna aynu usoo dhammaystirno. saaka waxaa bilaabmaya 70kii cisho aynu u qabsanay hawshaas inay kusoo dhammaystiranto. kulankii hore madaxweynaha waxaanu iskugu nimid anagoo diyaarinayna wixii arrintaasi diyaargarow u baahnayd. maantana shaqadii rasmigii baa bilaabmaysa oo gaadiidkii iyo qalabkii iyo qorshihii ayaa arrintaas u baahnayd baa usoo dhammaystirantay. alxamdulillah maanta munaasabadaasuu ilaahay nagu beegay iyadoo qarankii laba kaclayntiisii iyo diyaarintiisii la diyaarinayo. waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada si madaxweynuhu noogu furo hawsha weyne qaran, isla markaana uu ugu ballan qaado shaqaalaha horumarinta diyaarsan ee la doonayo si loo diyaariyo in tiradooda la helo si loo tayeeyo. sidoo kalena uu commitment iyo gacan adag noogu ballan qaado wixii halkaa ka soo baxa ee aanu soo qabanno ama qalad ku jira inuu gacantiisii iyo qarankoo dhanba ugu badheedhay in waxaa soo qabsooma go-aankii lagu meelmarinayay inuu qarankoo dhan ka wada socdo. aad bad dhammaantiin mahadsantihiin wasiir kusoo dhow.